idinku gacan bira ku qabta cabdi axmed xuuraankiina iyo shaqadiina iyo dawladdiina quraanjo way leedahay wax qabadkiinana qabta idinku iman mayno idinkaga daba iman mayno waxay fidmo wada waxay noo sheegtay inay media wax ka qaban doonto qof waliba wuxuu qorayo iyo ama soo boosti garaynayo ama dadka uu la sheer garaynayo intaas oo fidnaa way sameynayaan waxa la horta dawladday idinku gacan bira ku qabta idinku iman mayno idinkaga daba iman mayno waxay fidmo wada wixii fidmo ka shaqeynaya cidna laga soo dabadoonayo damiin loo soo dooni maayo ilaahay ha inoo aqbalo juhdigii iyo dadaalkii iyo go'aamadii maantii dhawaytaanada laga yeedhiyay ilaahay ha inoo aqbalo ilaahay waxaanu ka baryaynaa isaga waxba kuma aha inuu dadka qulubtooda wixii ay xanuunsanayso ee xumaani ku jirto colaadi ku jirto ilaahay ha ka saaro wixii qalbiga ka jiran ilaahay ha ka saaro inta wanaaga ka shaqeynaysa ee ehelnimada iyo aakhiradooda ilaalinaysana ilaahay waxa la qabto ilaahay wax ka barnaa inay iyagu qaalibka noqdaan mar walba inta samaanta ka shaqeynaysa hadal badan baa halkan laga yidho waxa weeyaan wixii muhiimadda ahayd waa la yidhi runtii waxaan ognahay maanta madaxweynaha qaranka ee ilaahay xilkeena ku dhiibay inuu habeen iyo maalin ka fadhiisan inuu dadkani nabad heli lahaa dawladihii hore lafteedu may dadaal yarayn laakiin nasiibkana waa la isku dhaamaa waxaan aaminsanahay madaxweynaha hoodada iyo ayaanku ay la socoto hadda shimbirta nabadu saaran tahay ka shaqeynaya dadkii aynu gobolka wada degi jiray ama deegaanka wada ahayn oo dhan inaynu nabadno inaga dhexdeena iska daayay ka shaqeynaya waxaad ku garataa maantii dhaweyd intaan go'aamadii afka odayaashii iyo dawladdii ku dhawaaqaysay ee madaxweyne ku-xigeenkii aanu dhammayn hambaliyuu la soo fadhiistay dawladdana waxa weeyaan dawladda uu odayga ka yahayna go'aano adag inay ka qaataan buu faray ciidan adagna gobolka wuu soo geliyey waxaan leeyahay horta maalintii go'aamadu halkaa ka dhaceen go'aamadaadi soo baxeen madaxda dawladda ee barasaabka iyo taliyayaasha ciidamada ugu horeeya janarkan cabdi axmed tiir iyo ragga amniga kala shaqeeya iyo maayarada dararweyne iyo ceelaf weyn waxaan leenahay horta dadka Soomaalidu il xishoota ma leh il baqday leedahay gacan adag in lagu kaxeeyo waayeelkana kan dadka dambiilayaasha ka daba ordayana war aynu go'aamada maanta ku adkayno qofka dhibta wada in ummadda laga qabto aynu ayidno aynu taageerno wax maanta inoo yaala waxa weeyaan ilaahayna inaynu mahadnaqano ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu raxmaadkiina bariyahan uu yara koobnaayo ilaahay inoo furo maraqa inoo ka furo oo ilaahay uu raxmaadkiisa inoo furo waxa weeyaan ragga kan maanta waa dhalinyaro u badan yahay waxaan u maleynayaa odayaashii magaaladan wax ka ahaan jiray anu 3 oday baanba ka garanayaa ama haddii aan laba leeyahay meheradahooda geli jiray waxaa daara arkaysaa raggii dhisay 3 oday baan anigu aaminsanahay hadda inay ka joogaano raggii waaweynaa magaalada joogay waxa weeyaan 4 nin kama badna intii aan anigu meheradaha ku haystay Axmed Yare iyo maxamed cabdulle tuke xaaji guure sahal caraale waxaan u maleynayaa cid soo raacdaba raggii meesha magaalada ama hantida ku lahaa ama wax ka dhisay maba jiraan midnin aabihii wax ka qabtay waa nooli safadiba saasay u degaysaa inaynu aakhiradeena ilaashana marka loo baahan yahay ku cibra qaadano dadkii meeshan ka tagay wanaaga iyo ku wada joogi jiray hadalku maanta intaas uu iskaga dhan yahay oo ku urursan yahay dhalinyarooy waad maqlaysaan war miidiyaha colaada batroolka lagu shubay weeye waxaan leeyahay hadda xukuumaddu waxay noo sheegtay inay miidiyaha wax ka qaban doonto qof waliba wuxuu qorayo iyo ama soo boosti garaynayo ama dadka uu la sheer garaynayo intaas oo fidnaa way sameynayaan waxa leeyahay horta dawladday idinku gacan bira ku qabta cabdi axmed xuuraankiina iyo shaqadiina iyo dawladdiina quraanjo way leedahay wax qabadkiinana qabta idinku iman mayno
idinkaga daba iman mayno waxay fidmo wada wixii fidmo ka shaqeynaya cidna laga soo dabadoonayo damiin loo soo dooni maayo la soo dooni maayo waa laga qabanaya dadka waa laga qabanaya isku mid saaseen wanaaga ku helayna hadduu inay hebel noqdo qofkii maalin walba wax dhimaa oo maalin walba aynu haddana maantana ka damiin igu siidaa kana ii siidaa wargo'aamada halka ka soo baxay wixii khilaafa ee ka hor yimaada kulligeen aan ka wada shaqeyno inay sidaa ku